عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي دمانتين مال كستا جوجتان I hope دمانتين عفان قبطان نوعي سنتين مال كستا حلي كستا إي ساعة كستا يدينتا الله سبحانه وتعالى يدقو حفتيو وويلكم باك سولو هذا ويناقي يسكسون نقولنا إيه another فيديو مع عفمات قبطان من نوعي سنتين إلهي محقر رجانية مال كستا جوجتان عفمات إيه نوعا لكو جرتان لما ولا لك أذان لكو سو بيرو ويلكم كسولو هذا مال يدقى جعليه ولا لها يقهر ويلكم باك دمانتين جساك الله خير هذا الفيديو قلقتين وسهارة سبسكرايب وشير كراي بريها وين وكلام قناين سيداتين مع عفمات قبطان من معيسنتين سوشيال ميديا دي بريها وحينو نقط انترتينمنتي ويق والبا قف عصبا إيمانية قف كاسا ويق لبا ويق سالوات وضعي بابا meeshuu galay wuxuu ahaan jiray meeshuu soo maray leefkiisii istargiisii wixii oo dhan oo kooblo ku soo korba social media dalkani oo been iyo run saal isugu walaaqayo qoys muslim oo kala tagay wax lagu farxo maaha furitaanka ilaahay baa qataray oo qofna calafkooda markay kala dhamaadaan xagga Allah ay ka soo dhamaataa soo wala kala dhaqaaqaya ilaahay waxaan uga rajaynayaa hadduu calafkooda dhamaaday in uu mid walba meeshiisa khayr ku siiyo mid walba meeshiisa ku xifdiyo ayna noqdaan waalid isla korsada caruurtooda calafku isku leeyihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabadgeliyo farxad isku soo celiyo dhibaatooyinka weyn oo social media yaala waxay tahay markaad social media ku jirtid family-gaagana soo bandhigtid noloshaadan la ogyahay wixii aad sheegta waa laga hadlaya sababtoo adaa iskeenay adaa social media soo galay adaa hadalkaagii keen soo gabadha tan markii ugu horeysay dhowr bilood ka hor ayay mar TikTok soo gashay iyadoo calaacalayso heesa qaadayso oo gabadh yar dhakhtarka ka jirta baby yar ay dhashay oo iska mudsa markaas suuqa wax la soo galiyay way kala tageen haddana I think waxay noqotay waxaan waxba ka jirin maybe marka xoogaa way isku meeyar fiicnay laakiin iyadoo hadlaysay oo heesaha soo duubaysay iska waxay ahayd qof murugaysan camal oo kale oo dadka u sheegay haddii aad wax muruga la soo dhigtid dhowr jeer ku celcelisid dadku bini'aadam ale wala shakiya waxa la maxaa jira oo aad waliba dadka qayb baa waxay rabaan inay waxna ku sheegaan waxna qariyaan soo bini'aadamkana waa imtixaano wixii aad tustay wax lagu sii tartaraya hayeeshee beriga kama hadna way ka aamusay maalintii dhoweyd markay soo gashay social media waxaan yiri waa just wixii hore haddana videogeedii baan daawaday in mar way dhaaratay qof weyn oo hooyo oo dhaaratay in la xaqiiqsado way furitaanku dib ma laha ceeb male wax la isku caayo maaha wax lagu faano maaha wax qof lagu eedayo maaha wax qof lagu amaanana maaha oo lagu dhiirigeliyo leedo congratulation oo ninkii baad ka tagtay no maaha waa guri soo muslimo oo burburay waa qadar alle hayeeshe ceebna maaha dadku way kala tagaan social media furooyinka looga dhigayo waxba dhacdayo qofkii in geeriyo ku dhacdayo in dhibaato weyn ku dhacday ninka ay kala tagaan halka ismadluubinayso wuu adag gurayso so insha Allah bismillah kan videoga kan waxa saddex shay oo aan rabo in aan la yaabay laakiin aan rabo bal inaan ka yara hadlo maadaama aynu dumarnahay it's important in waxyaabaha qaybtood ka hadalo iska waanino ama iska dhiirigelino furiinka iyo guurka iyo kala tagga iyo ilaahay baa qadaray wax ceeb ahna maaha dadku wayna isguursadaan wayna kala tagaan qofkan aynu isguursanayno ama aad isguursataana dee wax ballanqaadi ma jirto xagga allana ballanqaad kamaynu helno maynu qofka forever isqabaysan kaasina ballanqaadina muusino forever aynu isqabayna qofku wuu ku nici karaa adiguna waad nici kartaa qofka kan bini'aadmiga hadda inuu ku naco xaq buu leeyahay adiguna inaad nacti xaq baad u leedahay khasab maaha in laisku dheganaado so taas waa mid so guurka anigu marka furin ku dhaco wax social mediada ceebta looga dhigo loo buunbuuniyo taas wax khaladaba ila tahay oo laysugu sacabato qaybayadan guur fax fiican baad samaysay ninkii baad ka carartay kuwa yidhahdaan gurigaagii ku noqo kuwa yidhahdaan oo gabadhaha loo heliya wiilka maxaa laga helaya dadku weligooda kala tegi jireen so aniga taas waxyaabaha social media ku jirto oo meel loo qaada ay jirto aanay jirin bay tahay dumarkeenii Soomaaliyeed waxaynu jeclaanay inaynu noqono victim gabadhii intay social media soo gasho way barooranaysaa hadda gabadha tan saddexda mas'uul aan rabo inta ka hadlo horta number 1 leeyahay laba wiil bay leedahay oo ninka la soo dhashay ninka ka hor labada wiil oo aan aad u leeyahay oo khalad weyn la noqday oo aan qaadan waayo hooyo caruurtoodii qaybna sheegaysa qaybna qarinaysa hadaadan ilmahaaga social media soo gelin hadaadan ilmahaaga ka hadlin hadaadan pictureadooda soo dhigan good for you adaa doortay laakiin waxaan fahmi la'ahay hooyo intay meel soo fadhiisato oranaysa shan caruuraan leeyahay iyadoo 7 caruuraan labadii kala qarinaysa hooyada iyadoo wiilal dhashay haddaad aragto commentiyada waxa lagu soo qorayaa oo wiilaan buuga tagay oo wiilaan oo uu khaldan yahay bal taasan bal dib aynu ku soo noqonaa laakiin waxaan la yaabay gabadha tan haddii ay labada wiil leedahay dadkuna sida ay sheegayeen yiraahdaan laba wiil bay leedahay ilaah baa inagu hadaan ilahayn di khalad ma laha laakiin haddii ay laba wiil leedahay way wiilasheeda ay u qarinayso khasab ma inay pictureadooda dadka ku tusto khasab ma inay tirado laba wiil hebel faarax la yiraahdo waan dhalay oo reer hebel
laakiin inay dadka tirada no anigu hooyo wiilal dhashay baan ahay anigu waan leeyahay wiilal gabdhana waan leeyahay hayga habaarna wiilashayda dadka because waxay assume garaynayaan inaanay wiilal lahayn dadka qayb waxay leeyihiin isaga yar hasheega inaga ma garan karno laakiin there's no way nin kastoo adduunka ilaahay noloshaada soo gala inuu caruurtaada aad u qaristo waa khalad ina caruurtaada qaybna aad sheegtid qaybna aadan sheegin waa wax aniga naxdin ilaa xataa see how come hooyo ilmihii ay dhashay ay qaybna u sheegaysa qaybna u qarinaysa videogadan dambe waxay leedahay hooyo 5 caruur haysata baan ahay hadday labada wiil ay dhashay ay jiraan dee labada wiil may sheegan wiil waxay ka dhigtay waxaan leeyahay taasna adigayna wax aad u xun tahay inay hooyo ilmaheedii qariso oo dadkan ay ku tirado war aniga hayga habaarna wiilasheeda laba wiil baan leeyahay talaa kale oo la leeyahay social media waxaa loo soo geliyay gabdha ma xaqiiqada jirtaa mise aanan u malaynayn aniga inay runta xaqiiqada jirtaa waxay tahay ragga intooda badan inay wiil jecel yihiin gabadhuna hadday gabdho badan u dhasho ay jecel yihiin inay wiil dhalaan magacoodi reeba wiilku uu la weyahay even xataa isagoo hadda inay familku yirahdo warnaa kala guurso wiil baad dhalno so waa oran karayna nin nimanku naaga kala wiil la guurso wiil u dhasho maryan iyo ninkaas waxay ku kala tageen ma garan karno ilaah bay nago laakiin I don't ma aaminsanin nin naag uu jecel yahay fiiri ninku naagtaanu jecel uu ka tagi karo 7 wiil xataa haday u dhashay 10 wiil haday u dhashay it doesn't matter ninku hadduu ku naco 10 wiil dhashaya 5 wiil dhashaya 8 wiil dhashaya wuu ka dhaqaaqaya laakiin ninka naagtiisa jecel qiimo weyn ay la leedahay jacayl iyo xubbi iyo kalgacal qaba 4 gabdhood 5 gabdhood 10 gabdhood haday u dhasho kama tegayo laakiin ninka naagtiisa jecel because gabdhay dhashay ugama tago annagaa naqaana faamiliye badan oo 8 gabdhood ay u dhaleen aan wiil lahayn maasha Allah isqabaan habba isku ma yihiin dad yar badana Soomaalida way yar yihiin dad caynkaas laakiin way jiraan anigu ma aaminsan nin baa naag u jecel yahay uga taga caruur la'aan gabdhay dhashay wiilal kaliya dhashay wax la'aan qofku jacaylku xubbi ilaahay qofku binaadiga ku abuuray ninku naagtu qofku u jecel yahay kula joogan ninku laakiin hadduu ka tago 10 wiil hadda shaxta uu ka tagay maybe in labadooda aan isku fiicnaan maybe inaan weligood xiriir fiican lahayn ay qarqarinaysay oo isqarinayeen laakiin gabdho uga tagay xaqiiqo ma hayno iyadu ma saasayna tirina may oran isaga ma laga soo sheegay wax dhici karta ma tahay waxa dhici karin ma tahay no waxa weeyaan ninku naagta uu jecel yahay kama tago wax kasta haysato laakiin ninku hadduu ku naco uu ka tagayaa cunto kasta uu kare si kasta ugu fiicno naag kasta ugu qiimo badno si kasta ugu qurux badno naagta adduunka ugu aqoon badan laho naagta ugu taajirsana naaga Hollywoodka laga wada tagaa hadduu ku naco uu ka tagayaa meeqan ninba waxay korinayaan niman kale caruur ay soo dhaleen oo anigeeduna hal cunug hayn midda kale laakiin aniga aan aad uga xumahay dumarkeena la kula yaabanay gabadhan hadda aan ku eedeynayo waxay tahay habeen TikTok every single day waxay soo gelinaysaa picture waxay soo gelinaysaa heeso iyadoo say soo luudinaysa iyadoo uu isoo ooyay laakiin heeso cala xataa gabdhihii yaryar soo tusayso hooyo walayga kiin tagayo anigu dumar baan anigu sidana hadda adiga tagtay waxa ay daldalayso gabdhihii yaryar tustay soo tan waxay tusaysaa inay leedahay gabdhaadiga ka tagtay waan iska kuraya ilmahayga waan korsanay cala victim inay iska dhigayso why weligeed dumarka rag la kala tagi jiray أول بحر كصومالي حقوقك دقالها ما تودي ذا كرسي كره دي قدرتي دعدي أفرين دعي سكستاني كوربتد وتترير كي كان روينا الهيستي لكن محينو علينا محينو برورنا محينو أونينا محينو بقول يشني تمن هيسود سكسو على سيدي إن إلهي نجتكي نيل يرى شل إسكور ستين عرو السنة شيء إلهي أولاد قرحة بدن بقاسي أولاد هذا كرسي واي ما حد كده في زمان وبهيست تلات سكسو بس على علك هوس بالو سقرية صاري هذا every TikTok iyo YouTube idinka arko TikTok qolalka ka furan gabadha wada yaabaysa maalintii Kenya joogtay waxay qaban jirtay maqaaxida ilahan jirtay meesha fadhiyi jirtay been run meesha ka timi meesha ku dhalatay waxba saalay suuq talaarday maxay hadda dheefsatay wax aan hadal xumo ahayn iyo wax aan ahayn dad falanqeynaya saanagu falanqeynana iyo wax ka hadlaya iyo iyadiyo marba victimska what's the point marka ka anigu waxaan la yaabanay waxaynu u jecelahay inaynu noqono dad victim oo laga naxo inaynu noqono dad la yiraahdo alla dhibaato ku dhacday dhibaatada ku dhacday maxay laba qofad shalis qabteen ba kala tagtay ninkan hortiisna waa noolay hadana waa noolaanta ilaahay awlaad buu ku siiyay awlaadadooda ku sarsay ilaahay barsaaqadooda kafaara qaatay maxaa la ooyaysaa isaga bamooyay isagii ka dhalay dhaqaaqiyay maxaa la ooyaysaa yani it's just iyada kaliyana maaha waa gabdho badan
waxaynu jecelnahay I don't know why aynu u jecelnahay inaynu victim noqono oo laynoo baroorto oo aynu isaga dhigno dadan waxba qabsan karin oo aynu na weligeed arki maysan nin meel soo fadhiistaa why intaad maanta ka tibanaysid in ka badan baa laga yaabaa inuu kaa tibanayo oo maanta waxaa laga yaabaa wiilka Cabdullaahi hadduu soo fadhiisto inuu lecture dheer akhriyo tan igu samaysay haddana waa kaasoo ma oynayo ma baroonay ilaahow naagu shukaansanaya magaaladiisaasuu maraya soo dumarkeenii we just want inaynu victim noqono waxaana wax aad u xun weeye kan waa la isugu sacabtumay la odhan maayo ceeb weeyaan maha ka korso calaaxalka iska dah baroorta iska dah maxaad ku helaysa gabadh waxay odhanaysaa ninba ay dhibay manka kan aynu beenta ka sheegayno oo suuba salaaxaynana aynu iska dayno qofkan haddaanu qof fiican ku ahayn maxaa habeenii maal social media oo la fadhida u salaaxanaysa leedahay oo isaga dhaadhicinaysa dadka leedahay nin fiican weeye marka kokleed social media dadkii ku jiro oo iswada qabay faanayay ee lahaa ninkayga waa kan ninkayga wuxuu igu yidhahdaa dumarka sida dumarka uma fikirtid landheeraa tahay naag caqli badan baa tahay ninkaygu waxaan ii keen hadda kala dhaqaaqeen halkan inta isqabto oo social media ku jirto habeenay maalin isdhinac taagano fake ku jiro iyo oo dadka iska dhaadhicinayaan iyaguna arki doontaan oo soo furayaan social media oo soo fadhiista oo xaqiiqada ka hadlaa way yaryihiin qof waliba waxbuu qariyaa waxaa laga dhigayaa special dumarkii ninkii oo balanbalinayo silic iyo xariir ku jirto bay suba salaaxaysaa oo leedahay oo iska dhigsa qofka bini'aadamina markuu fake ku nool yahay nolol khiyaali uu ku nool yahay gurigaas wallaahi waa kii burbura haddaad aragtaan taa iga rumaysta naag social media idin soo fadhida ama nin idin soo fadhiyo been daldalayo le ninkayga ay jecel halkan uu igeeya halkan aanu marna waa isla haadnay intaasoo sannadood baan isqabnay baayo balanbal bay ku jirtaa ninkaas 10 naagood buu la shukaansadaa yaqaynu arkayna naaga social media ay nagula jiro habeenay maalin nimankooda faaninayo naagaha magaalada la jooga nimankooda ay shukaansanayeen naagaha magaalada la jooga la maqnaayeen sanado dhan ka maqnaayeen dhulalka wareegayeen qarinayo saa u soo baslaxay wayba u qarinaysaa inaad sheegtid maaha laakiin adiguna fake ha ku noolaan khiyaali ha ku noolaan dadka kalena u noolahayna wadan Soomaalina runta ma sheegno way nin aniga ay dhibayaan inta meel soo fadhiisto been uga sheegaya ma iska aamusilaha ama waan aamusilaha ama waxaan la walaal uu dhibayga dakhil igu soo duceeya hada ana odagayga haduu dhibo walaal uu dhibayga igu soo duceeya khayr Allah si laakiin been inaga waxaynu nahay ummad dhan oo dad kale u nool maalin dhow waxaan arkay gabadhan qaano ninkeedu subhanallah shaydaan evil caadi uu yahay dhibo ayda u dheertay afxumad u dheerihiin baayo baranbarkay ku qabtaa arkaysid Snapchat wiilka ka waxay soo dhigaysay geesigii qabayo geesigaygiyo love anigu qosli waxaan geeska dhaadhicinaysaa bal marka dadka caynkaas aynu wadanahay guryaheeni oo qurmay baynu dabooleynaa khasab ma qofka noloshiisa ka sheekeeyo haddii gurigaaga ugu xuyo noloshaada ku xunday ilaahay bari qofka dadka bixi kartid ka bax haddaad ka bixi karna aday ku taala laakiin been yeena sheegin yeena fay ku noolaan yeena life ayna ku jirin dadka uga sheekeynayno ku jirno because life kaas tomorrow ku qarxaya nin kasta buubuunisid iyo qof kasta social media ku jiro saa u sabaxo yiraahdo maxamed waa dahab iyo faarax waa dahab tomorrow warkood cad arkaysa ku qudra qaatay intii social media ku jirto in habeenii maalin nimankooda inaa wax jiidanaya inuu aragno soo maryan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu gabadha ilmaheeda la garab galo waana korsan kanaysa insha Allah bidmillah karin iyaduna aanay ninkeeda ka hadlin because nin aad kala tagteen hal gabdho mid iga ogaada qofka aad kala tagteen oo wali ka hadlayso qofkaas waad rabtaa rajaad ka qabtaa qofka aad ka hadashid ka warwarsan tahay hadal haysid waa qof aad rabtid qof aan aniga ma ka hadlayo nin ma ka tagay dib uga hadli maayo ilmahayga aabahood hadduu yahay maasha Allah waxaan u hayaa ixtiraam qof aan xiriirkayagu xumaaday friendship whatever u noqday ma yahay I'm down with you waa kaa tegaya qof aynu ka hadalno ka waran waa qofaad rajo ka qabtid soo intaa qofkaa rajo ka qabtid oo marba hees meel isku soo duubaysidoo calacaleysidoo leedahay weli waa ku jeclay meel jacayl anoo ku qabo hore adiga tagtay ilaahi subxaana watacaala faamiliga kan dhexdooda khayr ha dhigo carabkooda hadduu dhammaadayna ha noqdo waalid awlaadooda isla korsado farxad ku korsada haddii ilaahay calafis ugu rarina ilaahay isku soo celiya laakiin dumarow isku tasho intaan lagaa tashan
kaasho qof bini aadmi ha u dhagar xumaan naftaada ada iskale haddaa adigu isxushmeyn weydid haddaa adigu isqiimeyn weydid haddaa adigu faaliyuga garan weydid ninka kula joogaana ma garay moor aas tiraahdo qofka kan u dulqaado moor lagugu korsocdo weye marka dambe waxaad gaadhaysaa heer adigu isgaran weydid way bini aadmi baa tay adigu dulqaadanaysaa wax sharaftaada dilaya maskaxdaada xanuujinaya way qof sidee guurku waa shuraako waa laba qof wax isku darsaday baatiin shuraakada haddii lagu heshin waayo waa lagu kala tegaya haddiise lagu heshiiyo waa la wada joogaya shuraakada hal qof kaligiis ma wadi karayo so insha allah bidmillahi kare ilaahay meelinu joognaba hayna xifdiyo laakiin dumarow isku tashada victimkana aynu iska dayno calaacalka aynu iska dayno calaacal waxaad ku helaysid mana khasaaro waxaana kaagama soo kordhaya move on lifekaaga xidho haddaad ooyeysid sida islaamaha soomaalida ay sheegi jireen sariirtaada kusoo oy barkimadaada hoose qoydo terabi u tag qof ku nafis asxaabtaada ku nafis sheekay ka hadal laakiin every single day video yaro iyo calaacal iyo been iyo haddaad doonto adiganba murugaysnayn aad dadka rabtid inay kaa naxaan that's disgusting wallaahi waxaas wax laga xishoodo weeyaan wax adigana sharaftaada dilaya wey caruurtaada dilaya weeyaan gabdhay leedahay inay gabdhaheeda strong ku noqoto way inay tusto tirado you can move on haddii wax kugu dhacaan haddii ninku kugu xumaado waad noolaan kartaa laakiin marka adigu calaacalaysid gabdhahaga yaryaraan ku daawanayaan fideoyada tan maanta iyo wax kan meelaha la wareegaya hadalada tan forever bay ku jirayaan caruurtaaduna hadhow iyaguna waxay umalaynaya waxaan inay normal tahay iyo gabdhaha dhalinyarada ah ee ka dambeeya so insha allah bidmillahi kana meelanu joognaba allah in xifdiyo intaynu video kale ku kulmayno khayr ayaa idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh